بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waa u mahadcelinayaa wasaaradda dastuurka maamul goboleedka Hirshabelle iyo kan dowladda federaalka Soomaaliya fursadan qiimaha leh ee noo siiyeen inaan doodan ugu faa'iideysano qodobada ku saabsan dastuurka qodobadii 5aad ilaa 9aad ee lagu sameeyay isbedelka taasoo baahinayay awood qaybsiga dalka waxaan ka faa'iidnay waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin in awood qaybsiga dalka ama awoodii dalka in la baahiyo la balaariyo sidoo kalena sharciyo kala duwan oo ku saabsan baarlamaanka iyo xeerarka dalka in isbedel lagu sameeyay ka iyo kan garsoorkaba sidoo kale waxaan ka faa'iidnay waxay tahay in maanta ka dhalinyaro ahaan inaan ka faa'iideysano xeerarka iyo dalka ay dastuurka u yaala dalka inuu yahay mid anaga si qaas ah noo anfacayo sababtoo ah waxaan nahay jiilkii mustaqbalka lagu xukumi lahaa ama lagu dhaqi lahaa dastuurka maanta dalka u yaalo marka faa'iido xoogan ayaa noogu jirto in isbedel lagu sameeyo cutubka 5aad ilaa 9aad kaasoo aan rajayn doono mustaqbalkeen wax badan inuu ka bedeli doono haddii la yiraahdo بسم الله مجيء شكر أويس علي واي عن كمية تدويني شلون حصل قيب قلي سمنار حصل قيب قلا ما كلينيكا وحن شلون كفهنا دستور كا عطوب كا 5aad إلى عطوب كا 9aad أجازي garsoor كا برلمان كا يو مدحوينها يو waxyaabo badan ka faa'iidno dastuurka kamid ah marka waxaan jeclaan lahaa kulamo kale in haweenka saamka loogu qabto si ay uga qayb qaataan agaasi kama kale si dastuurka macnaha sare loogu qaado u shaqeeyo waxyaabo kale ay shacab weyne ay kusoo ziyaadi karaan بسم الله الرحمن الرحيم waa mahadsantahay waxaan filayaa inaan ka faa'iiday kulankii dadweynaha wasaaradda dastuurka ay qabatay cutubkii afartii maaragtay cutub ee la oo dastuurka ahaa qodobka 5aad wuxuu ahay maaragtay madaxweynaha number 6 wuxuu ahaa baahinta awoodaha 7 baarlamaanku ahaa 8 wuxuu ahaa laamaha fulinta oo maaragtay oo wasaaradaha 9aadna wuxuu ahaa maaragtay garsoorka iyo cadaaladda dalka intaasaan ka faa'iidnay runtii wax aad u wanaagsanayna ahaayeen mar walbana waa loo baahan yahay dadka noocan oo kale ah oo aniga oo kale oo baahiyaha gaarka qaba inay ka faa'iideystaan waxay keenaysaa maaragtay nidaamka dimuqraasiga oo dalka Soomaaliya lagu sheego ayay maaragtay awood u yeelaysaa sarana u qaadaysaa soo waxa waaye hadda wixii ka horeeyay dadka baahiyaha gaarka qaba iyo hawlaha noocan oo kale alaaba lama keeni jirin laakiin hadda waxaa soo dhow insha Allah taala ruux baahiyaha gaarka qaba inuu dalka madaxweynaha ka noqdo mustaqbalka dhow oo fog ama dhow aan dhihi karno marka waxa waaye aad iyo aad ugu mahadsantahay wasaaradda dastuurka oo hawshan soo diyaarisay بسم الله الرحمن الرحيم مجيء وعبد القادر عبد الله علاد عن كنا له دقمة الجوهر خاصة عاصمة هيرشبيلة كلهم كيشلي halkan lagu qabtay waxaan ka faa'iidnay inkastoo uu ku saabsanaa cutubka 9aad ilaa 5aad oo ku saabsanaa waxaan aad iyo aad ugu faa'iidnay awoodaha garsoorka oo sare loo qaaday maxaan ku raahdaa madaxweynaha imaan doono dalka sida uu shaqeyn doono hay'adaha kala duwan oo baarlamaanka ku ka yahay siday u shaqeyn doonaan go'aamada oo fulinta oo baarlamaanka uu yeelan doono waxyaabo aad iyo halkan lagu soo koobi karna aad iyo aad aan u fahmnay waxaan kaloo rajaynaynaa hadduu ilaahay insha Allah in kulamada noocan oo kala ah oo sare loogu qaado wada tashiga ah oo bulshada laga qayb gelinayo go'aamada ama dastuurka dalka in la xoojiyo aysan noqonin wax sanadkii mar la yimaado aysan noqonin haddii la awoodi karo in bishii mar la qabto oo go'aamadan oo kale inta bulshada laga qayb geliyo wax walba oo markaas halkaas ka dhacayo si ay dalka iyo dadkaba ay haykalka dawladnimada ay la jaan qaadaan oo dalkane xasilooni iyo maxaan ku yiraahdaa iyo nabad iyo barwaaqo oo u horseeda dawladda insha Allah waxaan baarlamaanka soo socdana ka rajaynaynaa ama dawladda hadda jirtay ee baarlamaanka kale imaan doona iyo madaxweynaha kale imaan doonaba in dalkan meesha hadda uu sii taagan yahay aysan dib ugu sii celinin meesha uu taagan yahay ay ka sii wadaan dawladda insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.